asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa dhab taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheega. halkan aad nala socotaan waa website-kayaga www arabsiyatimes.net iyo youtube channelkayaga oo ah arabsiyo times. waxaynu hore u soo qaadanay barnaamijkeennii dibimilicsiga taariikhda iyo ahdigii tegey carwooyinkii ay soomaalidu ku geyn jireen qaaradaha yurub. qaybtan oo ah qaybtii saddexaad waxaynu iyadana ku soo qaadan doonnaa kooxdii suldaan cali iyo carwooyinkii ay ku gaalaa bixin jireen amba ay ugu qaadi jireen qaaradda yurub, ameerika iyo australiyaba, halkaasi oo ay bandhig faneedyo ku saabsan dhaqanka ay ku soo bandhigi jireen. qarnigii 19aad waxa uu la kowsaday guurguurkii dadyowga dunida iyo isku furnaantii bulshada adduunka. xilligaa waxaa yurub ka tis qaaday gacaankii warshadaha. waxaynu hore u soo sheegnay in ay bartamihii qarnigii 19aad ay kooxo soomaaliyi ay qaaradaha yurub iyo ameerika ay u waaridi jireen carwooyin ku saabsan dhaqanka soomaalida. carwooyinkaasi oo iskugu jiray ciyaaro, soo bandhigid, iibgeyn dhaqanka soomaalida amba farshaxanka oo ay ku soo bandhigi jireen, iyagoo ku soo bandhigi jiray warriorkan cabsida u dagaalamaan wakhtiyadaasi. yurub waxa ay adduunyadu ahayd xilligii aanay jirin sinimooyadan la daawado. qarnigaas 19aad bilowgiisii waxaa bilaabmay in dadyo badan oo adduunyadii ay carwooyin kolkaa ku soo bandhigaan qaaradda yurub, ameerika, australia. waxaana ka mid ahayd suudaan, waxaa ka mid ahayd masaarida, waxaa ka mid ahayd etoobiya, waxaa ka mid ahayd hindiya, waxaa ka mid ahayd rushiya, waxaa ka mid ahayd dalalkan laysku yidhaahdo idojayna amba indharyarta, kuwaasi oo dhaqanadooda ku soo bandhigi jiray. haddaba waxaynu soo qaadan doonaa labadii kooxood ee hormuud iyo kooxdii suldaan cali. geyiga soomaalida waxaa ka tegi jiray 3 kooxood oo koox waxaa la odhan jiray hormuud, kooxna kooxdii suldaan cali, kooxna zaylac bay ka tegi jirtay. kooxdan hormuud waxay ka soo bixi jirtay iyada berbera. kooxdan suldaan calina waxay ka iman jirtay deegaanka siyaaro ee bariga kaga beegan berbera amba marsada berbera, halkaasi oo ceelal badan lahayd oo magaalo wakhtigaa iyo miyiba ahayd. siyaaro deegaan aada u ballaadhana run ahaantii. kolkaa 3 kooxood, 2 kooxood baa ugu caansanaa oo kolkaa hormuud iyo suldaan cali. hore waxaynu uga soo hadalnay kooxdii xirsi ciga goorse amba kooxdii hormuud. maanta waxaynu dul joogsan doonaa kooxdii suldaan cali iyo bandhig faneedkii carwo ee ay ku soo bandhigeen magaalada bradford, galbeedka yorkshire ee gobolka england. si aynu wax badan haddaba uga fahanno waxaynu soo qaadan doonaa horodhac yar oo kooxdaasiya. waayo kooxdani waxay ka koobnayd 100 qof oo kooxdaasi ka mid ah, oo ciyaaryahana, oo farshaxana
oo heesaaya iyo qayb agabka samaysa sida guryaha loo qurxiyo, kabad ha noqoto, alool ha noqoto, udub ha noqoto. waxaa kooxdan oo kale la socday oo iyagana ka mid ahaa qaybtii farsamada gacanta ee tiknolojiyadii soomaalidu wakhtiga ay lahayd, loona yaqaanay tumaalada, oo iyagu samaynaya warmaha sida loo sameeyo, qalabkan kale midiyaha sida loo sameeyo, seefaha sida birta looga sameeyo, agab biroo dhan laga sameeyo oo la isticmaalo ayaa la socotay. kolkaa kooxdani waxa ay ka koobnayd 100 qof oo isugu jira caruur, dhalinyaro, waayeel, abwaano, oo ka koobnaa rag iyo dumar, dhalin iyo waayeel aad ugu caan baxay ciyaaraha hidiyo dhaqanka iyo farshaxanka. kooxdan Suldaan Cali waxaa maal gelin jirtay shirkad la yidhaahdo Continental Syndicate. kooxdani waxay ka iman jirtay deegaanka Siyaaro ee duleedka magaalo xeebeedkii Berbera. kooxdan Suldaan Cali waxaa la socday Dr. Shakiim iyo labadiisii xaas oo wata 6 caruura, 2 xaas iyo 6 caruura. waxaynu hore u soo sheegnay kooxdii Hormood inuu la socday macallin Maxamed Nuur iyo dhakhtar. kooxdan Suldaan Calina waxaa la socday macallin iyo Dr. Shakiib oo kolkaa caafimaadka u qaybsanaa. run ahaantii kooxaha Soomaalida ee wakhtigaa marayay qaaradaha Yurub ee ku soo bandhigayay bandhig faneedadaasi dhaqanka iyo hiddaha Soomaaliyeed waxay had iyo goor wadan jireen macallimiintii oo caruurtii kolkaa qur-aanka u dhigasa, dhakhaatiirtii oo midwayfarigiiba la socda sida Dr. Shakiim oo qaybtan prescriptionka dawooyinka iyo lafaha iyo qalitaanka ah oo qaybta caafimaadka oo dhanna isagu markaasi dusha ka haysta. kolkaa waxay ahaayeen kooxo dhaqankooga, diintooda iyo wixii farsamo ee ay wataan u bandhigi jiray, carwooyinkaa ku soo bandhigi jiray. carwooyinkaasi wakhtiyadaa lagu qabanayo Yurub iyo America iyo Australia. maxay carwooyinkani ahaayeen baynu is odhan karnaa. carwooyinkani waxay ahaayeen oo xitaa lagu soo bandhigi jiray farsamo yaqaanimada dhaqankaaga, waxbaa lagu kala iibsan jiray. waa nacam auction oo kaloo ahaa oo layskugu imanayay, oo qof walba wixii wax soo saare uu leeyahay dal kastaaba oo halkaasi soo bandhigi jiray. kooxdan Suldaan Cali waxay carwadan Bradford ay uga soo kicitimeen magaalada Marseille, oo kolkaa kambanigan kontraadka siiyey ee Continental Syndicates la yidhaahdaa uu degaan ahaan u deganaa, ayay magaaladaasay ku soo horeyn jireen. kooxda Hormood qudhadoodu Marseille bay ku soo horeyn jireen, waloo iyagu kontraadkooga amba qandaraaskoogu uu ka socday Karl Handberg kambaniga uu lahaa ninka Jarmalkii. qoladan kale syndicateskuna kolkaa waxay ahaayeen Faransiis. kooxdan kolkaa carwadan waxay u soo anbabaxeen carwadan oo la qabanayo bisha May 1904 oo soconaysay ilaa bisha October 1904. bishii Abriil ayay kolkaa si ay diyaargarow ugu sameeyaan ayay u kaceen gobolka galbeedka Yorkshire, gaar ahaan magaalada Bradford, si ay halkaasi uga degaan degmo Soomaali ay guryahoogii aqal Soomaaliga ahaayee ay ka samaystaan intaanay carwadu
dee bilaabmin bil horteed si diyaargarow ay u sameeyaan. kooxdan suldaan cali waxaa la socday 14 caruura. kooxduna waxay ka koobnayd baynuni 100. waxaa ku jiray gabdho iyo wiilal da-doodu ay u dhaxayso 18 jir ilaa 20 jir oo ciyaaraha heesaha hidiya dhaqanka soomaalida aad loola tacajabay bandhigyadii halkaa ay ka sameeyeen. waxaa la socday waayeel, dumar waayeela, odayaal baa la socday, abwaanin waaweyn oo iyaguna kuwan wax oranaya ah, kuwii kale farshaxanka ayaa la socday. dhalinyaradu qayb baa warriorkii matalasay oo ku soo bandhigayay dagaalada beeraha oo kale, riwaayado caynkaasiya, dagaalkii kolkaa fardihii, warmihii, seefihii, leebabkii oo laysku ganayo, guryihii oo kolkaa buulashiiyo la gubayo, dumarkiiyo geeridii kolkaa geesigii dhinta ka dul ooyiya. waxa weeyaan waa riwaayado farshaxankoogu aad heesaa ku jira xitaa, oo waxaa u tumeeyey kooxo caraba ayaa misigana u tumeeyey. waayo carwadan kolkaa bradford lagu qabanayo 1904 bisha may ee dhammaan doonta bisha 10aad ee sanadkaasi 1904 oo maanta laga joogo 115 sannadood ka hor ahayd, ayaa waxaa ka soo qayb galay 2.4 milyan. waa 2 milyan iyo bar qof ayaa daawasho kolkaa daawanayay bandhig faneedyada, oo ruushkaa joogay oo ka mid a idoojayn oo dhan baa joogay, waddanada adduunka ka soo qaybgelayay, iyo kooxdii suldaan cali oo kolkaa halkaa ka matelasa ummaddii kolkaa reer guuraaga ahayd ee soomaaliyeed. carwadani waxay kooxdan suldaan cali waxay ka muujiyeen wacdaro xiiso badan. bandhig faneedkaas oo waxay soo jiiteen daawadayaashii ka soo qayb galay ee 2 milyan iyo barhka ahaa ayay soo jiiteen, oo aad iyo aad ayaa loola dhacay kooxdaasi suldaan cali. bishii haddaba wacdaraha bradford ka dhacay bandhig faneedkaasi oo sidaynu sheegnay bilaabmay bishii may amba bishii 5aad sanadkii 1904. bal dhacdooyinkii u khaaska ahaa amba duruufihii u khaaska kooxda suldaan cali ay meeshaasi kala kulmeen ayaynu wax yar dulmari doonaa. waxaa ka mid ah iyadoo goobtaasi ay kooxda kaga gubteen tuuladii amba degmadii ay meesha ka yagleeleen guryaha ka gubtay. waxaa kaloo halkaasi ka dhacday geeri, iyaduna gabadh masriixiyadda ku jirtay oo iyaduna goobtaasi ku geeriyootay, iyo gabadhii suldaan cali ugu dhalatay yorkshire iyo magaca loo bixiyey ayaynu iyadana gudageli doonaa. bishii august 1904 waxaa gubtay degmo soomaaligii ay kooxdaasi ku lahayd magaalada bradford, halkaas oo uu kaga gubtay guryo soomaali iyo hantidii taalayba. mar haddii ay tahay dhaqanka soomaalidu waa dad ku noolaa simi ereed, dhulka bay-adda ay ku noolaayeen waa bay-ad aada diirimaada oo simi areeda. wakhtigan ay mararka kolkay kooxaani u waaridayaan qaaradaha yurub, safaradaasi carwooyinka ay ku soo bandhigayaan cimiladu way ka duwan tahay.
waxaa kaloo koosgaraynaya waqtiyo qabow ilaa xada oo roobab dabaylo wato oo qabow badan amba u baraf dhacayo ayay ku hagaagayaan. dhaqanka soomaalida kolkay dhaxantu soo dhacdo amba qabow yimaado waxaa caado u ahayd in guriga dhexdiisa la kulaalo kolkaa saddexda dhadhaar amba golaha dabka lagu kulaalo. kolkaas sababtay inay guryahan soomaaliga ee kolkaa ku yaala village Tomal ay kooxdan ka deganayd amba deegaan soomaalkii ay ka deganaayeen magaalada Bradford. sababta ay gubteen waxaa sabab u ahayd baa la yidhi gabadh baa kolkaa waxay kulaalasay shoolad oo qabow badan ayaa bisha August dhacayay iyo roob badan. kolkaa aada shooladahaasay kulaalayeen. kolkaa dharkeega maro dheer oo ay sidatay ayaa kolkaa u qabsaday. iyadu waxoogaa yaroo dhaawac gubasho yar baa ka soo gaadhay qudhadeedii kumay dhiman. laakiin goobtaa waxaa ku gubtay laba guryo soomaaliga iyo kolkaa isku xigxigay laba guri iyo agabkii yaalay ayaa kolkaa halkaa ku basbeelay. kooxdan Suldaan Cali maadaama markaasi ay ka mid ahayd oo shirkaddan Continental Syndicates kolkay ka soo degaan Marseille waxay inshoran amba caymis ay u gelin jireen qalabkii sitaan oo dhan iyagoo wata dee xitaa awr bay wataan waxay wataan ugaadhiyo dhan bay wataan ilaa nafsadooda ayaa inshoran la gelin jiray si haddii ay dhib ka soo gaadho ay magdhow u helaan. kolkaa kooxdaasi labada guri ee ka gubtay waxa uu inshorankii magdhow u siiyey calaa guriba 300 pound labadii guri iyo agabkii hoos yaalay ee gubtay walow aanay wax nafsad qofii aanay dhibaata ka soo gaadhin. aynu halkaa ka soo dhaafnay magdhowdii guryihii gubtay iyo duruufihii khaaska ahaa ee ku meersanaa kooxda Suldaan Cali. haddana waa isla bisha August unbay waxaasi dhacayaane waxaa halkaa ku geeriyootay iyadoo masraxiyadii kolkaa jilasa oo kasoo qaybgalayaashii dadkii ay daawanayaan gabadh Soomaaliyeed oo la oran jiray Xaliimo Cabdi Bedel oo kolkaa u dhimatay xanuunkan la yidhaahdo tuberculoska waxaanay ka mid noqotay oo gabadhii ugu horeysay ee muslimadda ahayd ee lagu aaso galbeedka Yorkshire gaar ahaan magaalada Bradford xabaalaha la yidhaahdo Schoolmore Cemetery. halkaasi oo lagu qoray dhagax magaceegii iyo qur-aanka kariimka oo lagu xardhay. waana gabadhii Soomaaliyeed ugu horeysay ee goobtaasi lagu aaso. waxaynu barnaamijkayaga waxaanu ku joojin doonaa qaybtan saddexaad intaa oo Suldaan Cali qaybtiisa afraad ee Suldaan Cali ayaa insha Allah aanu dhowaan idii soo dayn doonaa. waa annaga iyo bahda Arabsiya Times oo idileh isma dhaafno nooli kolantay iyo barnaamijka afraad oo aynu sugnaaba. halkana waa website-kayaga www.arabsiyatimes.net. isma dhaafno.